soo dhawow somtrends wararka Soomaalida iyo caalamka faylashii Abastian in arrintan ay tahay arrin Netanyahu xaggiisa ka timid khubaro badan oo Mareykan ah ayaa qaarkood waxay leeyihiin erey Soomaali hadaan u isticmaalno madaxweynaha Mareykanka waxaa lagu iimaalayaa faylasha Jeffrey Epstein oo waxay leeyihiin macluumaadka la hayo ayaa wuxuu ka badan yahay inta la soo bandhigay kulankii ugu dambeeyay marka waxa leeyahay bishan ku soo gudubna February horaanteedii ku dhexmaray aqalka cad Trump iyo Netanyahu arrimo caynkaas oo kala baa looga hadlay waxa laga yaabaa in wararkaasi ay yihiin warar mara awaala waxa laga yaabaa in wax ka run yihiin laakiin waxa la yaab la noqotay dadka toddobaad ka hor madaxweynaha Mareykanka waa 19 February kulanka intuu soo dhicin aqalka cad waxaa lagu soo bandhigay bixin doonaa hal bilyan oo golaha loo ku aadan 9 iyo 28kiina weerarkii baa bilowday marka dad badan waxay leeyihiin sidee isku qabanaysaa madaxweynaha uu nabad ka shaqaynayay uu raadinayay abaalmarinta Nobelka inkastoo ay ku guuleysatay haweeneyda mucaaradka Venezuela waxa kaloo dadka Mareykanka haddana ka daadigi weyday ballanqaadidii Trump uu sameynayay oo ahaa dagaal ma qaadi doono bariga dhaxana ciidanka Mareykanka mar dambe dagaal ka geli maayaan mudnaantana waxay yeelan doonta America oo adduunyada kala dan ka mali marka dooda caawa taagan oo aad loo hadal hayaa waxay tahay hadalka Trump ka soo yeeray oo uu yiri Israa'iil anaaba dagaal ka geliyay iyo xogihiisa amuraha dibadda oo 3 saac ka hor isna hadlay Marco Rubio ayaa wuxuu leeyahay waxaan helnay macluumaad sheegaya Iran inay dagaal diyaarinaysay oo ay soo weerari rabtay Israa'iil haddii Israa'iil markaasi ay soo weerartana anagana aynu soo weerarayso marka dagaalkan qaadinay ka hortag buu ahaa marka gabar arrimahan ka faaloto gobolka oo khabiir ah ayaa jaziira goordhaweyto waraysi qaybta Ingiriiska la yeeshay marka waxa la weydiiyay hadallada madaxweyne Trump iyo Marco Rubio marka waxay leedahay dastuurka Mareykanka wuxuu dhigayaa madaxweynaha inuu difaaco waddanka Mareykanka iyo qadiyadiisa iyo mabaadi'diisa